Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Markasta oo ay wada kulmayaan asagiyo jaceylkiisa, waxa uu gacanta midig ku qaadan jiray kitaabka Qur'aanka ah. Muddo markii ay sidaa ahaayeen, ayay gacalisidiisa weydiisay oo ku dhahday, maalintan isbaranay ilaa maanta oo laga joogo sanad iyo 4 bilood, waxaad gacanta ku sidataa kitaabka Qur'aanka ah, ma ii sheegi kartaa sababta? Inta uu soo fiiriyey ayaa waxa uu dhahay, waxaan ka baqayaa quruxdaada iyo baahida aan kuu qabo, in uu shaydaanka iga faa'iidaysto oo aan dembi ku dhaco. Waxaan ka baqayaa in jaceylka aan kuu qabo uu noqdo mid ku eg oo keliya zinno. Waxaan kitaabka gacanta ugu sitaa in aan iskaga difaaco shaydaanka iyo xumihiisa. Asagoo hadalka sii wata waxa uu dhahay, ninka mustaqbalka kaa leh waa kan sharaftaada iyo sharafta reerkiina dhowra, waa kan kaa ilaaliya wixii aan Rabbi raali ka ahayn, waa kan kaa dhowra zinnada iyo in uu jirkaa ku raaxaysto oo keliya. Indhaheedii waxaa ka yimid ilin farxadeed, waxa ayna dhahday, waxaan diyaar u ahay guurkaaga, wakhtigaad jeceshahayna isoo doono. Waxaan kuu ballanqaadayaa in aan $1 kugu xujaynin, si uu jaceylkeena u noqdo mid guulaysta. Ninka suuqa xaaraanta kugu weydiiya guurkaama rabo, ninka suuqa xaaraanta kaaga dhowra ee guur kula tiigsada, kaas ayaa dhab kuu jecel. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi